إلهي سبحانه وتعالى وحنا شيء قرآن كإن لسود جي ليلة القدر جاء ليلة القدر جاء محور إلهي سبحانه وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر كاها وحيك خير بدن طيب إلهي سبحانه وتعالى كم بلاد بك خير بدن تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر نك إلهي وافجيه نك إلهي ليلة القدر كوافجيه الله هينا وافجيه نك إلهي وإنه كفى إذا استوفض إذا أو منهج كذي وضد هذا أسخره نك عصا وحيون قنايس ليلة يروحاس مدوغا خير بدن كم بلاد بوغا خير بدن عنيسا معنا واسديتا هي صدح سنة هي وليبو بلا ديراد هو انت سي هلكا هبين اعماش صالحه سمينيس معنا هبين كذا تهانتي سما عملك صالح الهبين كا سمينيسو oo ama salaada macna salaada cishay habeenka leeyatul qadarka aad tukanayso kun bilood cishood bay ka khayr badan tahay salaada sunneed habeenka la imanaysa leeyatul qadarka kun bilood salaadahoodii sunanta bay ka khayr badnaanaysa sadaqada aad habeenka leeyatul qadarka la baxaysay kun bilood sadaqa aad joogto u la bixirayd bay ka fadhi badnaanaysa وهلم جرا أعماش صالحة تكسي وضو ولقى بكسي وضو معنا عملك صالحة وليلة ليلة القدر كالله السماياي وحوك خير بنانا يا عمل كستو صالحة on habeen aan leeyatul qadar ahayn habeen aan leeyatul qadar ahayn oo macnaha kun bilood oo kaleeta ah kun bilood oo leeyatul qadar aysan ku jirin yuu ka khayr badnaanaya leeladaas amalkeeda saalix leeyatul qadri khayr min 1000 shahr saasalu ilayhi lidalika nabiga kaleey salaatu wasalaam kolku ka hadlayba wuxuu yiri man xurima ninkii la seejiyo khayraha leeladaas khayrkeeda ninkii laga hoojiyo فقد حرم الخير كله بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا هبين كاس حجري ننكي وناق يا خير كهبين كان ننكي لا سيجي خير ودن ولا سيجي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي إنما سيجيو الله نقول لي ليلة أسمرك وليلة القدر خير من 1000 شهر حكى له النبي عليه الصلاة والسلام إنه شيء إن ملائكتي أي سود دقيس تنزل الملائكة والروح ملائكة سود دقيسة ملك جبريل لو سود دقهيا روح ذا الشيء هو جبريل تنزل الملائكة والروح فيها ليلة لا دحد هذا أي سود دقيسة ملائكتي هي الروح دي بالي أنا ملك جبريل أنتوا بقى بين كده حديث سود دقهيان بالي محل سود دقهيان بإذن ربهم ربي قط إذا كيس يكون سود دقيسة ملائكة كم سود دقيسة إلهي بقى إدمي إني سود دقان لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحوري هبين كاس ملائكته waxay ka fara badan tahay buuri ardada waxa la wixii quruurax iyo dhagax yaalo dhan malaa'ikta habeenka ardada ku soo dagaysay waxay ka fara badan tahay waxa bacaad adduunka yaala ya ka fara badan tahay nabiga kaleey salaatu wasalaam malaa'ikta habeenka soo dagaysay aad bay malaa'ik aad u fara badan ya habeenka soo dagays salaamun hiya hatta matla'il fajr bal salaamun ذات تسليم وي ملائكته مد سلامت اي سلاميسو صاحبه وي على المؤمنين ذلك المؤمنين تا ملائكته كلك هبين كا سو دغيسو وا ملائكه صاحبها ان ذلك المؤمنين تا سلاميس ذات تسليم على المؤمنين هي ملائكته ومد سلامت اي مؤمنين تا سلاميسو صاحبها لي سلامت بو صاحبتها وهذه ضميرك هي لو عليا ملائكته waxa kale to dhici karta oo mufassiriintu ay yiraahdaan waxa loo celin karaa damiirka leylada nafteed oo laylatul qadarka yaa loo celin hayaa bayda marka saam xal oranayaa salaamun hiya dhaatu salaamatin wa leyladu habeenku waa mid nabadgeliyo saaxiiba min kulli makhufin marka habeenkaas sideedaba wax xanuun ah wax laga baqo wax yimaada ma jiraan habeenkaas waa habeen nabadgeliyo way habeen khayr iyo raxmad uu soo dagayso oo wax dhibaato aysan dhicin way aan soo dagaynin way markaas waxay dhaatu salaamatin wa laylo oo saaxiibaha baa nabadgeliyo min kulli makhufin laga nabadgalo laga badbaado habeenka waa habeen la badbaadahay hatta matla'il fajr ila fajrku ka dhasho yey malaa'iktani soo dagaysaa oo nuzuulka iyo soo dagida ay wadaysaa leylada marka laylatul qadarka ah yaa ku sugan 10 ka dambe sida ay culimadu u badan yihiin nabiguna kaleey salaatu wasalaam ahadiithisa wax badan oo kamid ah uu noogu cadeeyay
saadarteed in tobanka dambe si gaar loo dadaalo mudnaan gaaray leedahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mudnaanta gaarta ayuu siin jiray lidaalika waa kii la ina lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kaliya inaga nama lahayn lagu dadaalo tobanka dambe kolkii tobanka dambe uu galo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dadaali jiray wuxuusan dadaali jirin ramadaanka intiisii kale ramadaanka oo dhan wuu soo dadaali jiray laakiin tobanka dambe dadaal dheeraada buu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu muujin jiray kaana yajtahidu fi al-10 al-awaakhir tobanka dambe dhaxdiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dadaali jiray ma la yajtahidu fi ghayrihi wuxuusan qayrkii dadaali jirin buu nabigu calayhi salaatu wasalaam dadaali jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii leeyna yidhi kol haddii tobanka dambe uu galo shadda mi'zarah hoos guntigu nuujisan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam kolkaad shaqo adag u diyaar garoobaysa sooqmaati looma xidha guntiska qummaatu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu diyaar garoobi jiray shadda mi'zarah hoos guntigiisa ayuu nuujisan jiray oo uu xidhan jiray guntigiisu adkaysan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam wa ahyaa layla habeenkiina waa nooleyn jiray cibaado ayaana lagu nooleyn jiray habeenkii oo nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadii tilaawadii quraanka iyo wanaagii cibaadaadka anwaacdoodii kala duwanayd yuu ku nooleyn jiray adiguna inaad ku noolaysaa la rabaa intaad guntiska nuujisato wa ahyaa layla wa ayqada ahlah nabigu calayhi salaatu wasalaam reerkiisana waa baraarujin jiray waliba kolkii witirka dambe la joogo inuu kicin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam Aisha waa tii sheegi jirtay ehelkiisana waa baraarujin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam war laga faa'iideysto oo hal laga kacab oran jiray oo hal la tukada buu nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo acmaasha kale saalixada ahaba waa la iman jiray tobanka dambe marka inaan ka faa'iideysano oo waa sagootis waa dabagoosi weeye inaan tobankan dambe dabagoosanno inaan ka faa'iideysano inaan ramadaankii amal saalix ah aan si fiican ugu sagootino yaa aad madluub ah in tobanka dambe si gaar looga faa'iideystana waxa ku tusinaysaa adilada guud ee aha inama al-a'maalu bil khawaatiib acmaasha waxa laga fiiriyaa gabagabada ugu dambeys inaad si fiican u sagootido waa wax aad u madluub ah way